madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan miro dhal ah la qaatay madaxweynaha dalka isku taga Imaaraadka Carabta Mudane Maxamed bin Saayid. Kulanka labada madaxweyne ayaa lagu lafaguray hagaajinta xiriirka iskaashiga labada dal. Waxa ayna labada madaxweyne isku raaceen in iskaashi buuxa ay labada dawladood ka yeeshaan xagga ammaanka, ganacsiga iyo horumarinta. Arrimihii la isku afgartay waxa ugu waaweynaa 20 milyan oo ay dawladda Imaaraadku ugu deeqday abaaraha taasoo la dhex marin doono dawladda Soomaaliya. 2 in loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed fiisaha Imaaraadka. 3 inay dib u bilaabmaan duulimaadyadii airlineska Imaaraadku ay ku iman jireen Soomaaliya. 4 waxaa dib loo furi doonaa isbitaalkii Sheekh Saayid oo ahaa mid si bilaash ah ugu adeega dadka Soomaaliyeed. 5 in wafdi heer sarreeyo Imaaraadahi ay soo booqdaan Soomaaliya. waxaa labada madaxweyne isku raaceen in la sameyn doono guddiyo isku dhaf ah oo ka soo shaqeeya arrimahaas. Madaxweyne Maxamed bin Saayid ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahad celiyay ajiibidda martiqaadkii ay u fidiyeen, waxa uuna soo bandhigay doorka ay dawladdiisu ka qaadanayso gurmadka abaaraha ka jira dalkeena, horumarinta adeegyada bulshada iyo arrimaha ammaanka oo ah caqabadda ugu weyn ee hortaala dawladnimada Soomaaliyeed. Dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay dawladda iyo shacabka Imaaraadka garab istaagga ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaruhu, isagoo sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ahmiyad gaar ah siinayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan wadamada xiriirada soo jireenka ah ay Soomaaliya kala dhexeeyaan. aad baad u mahadsantihiin. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan miro dhal ah la qaatay madaxweynaha dalka isku taga Imaaraadka Carabta Mudane Maxamed bin Saayid. Kulanka labada madaxweyne ayaa lagu lafaguray hagaajinta xiriirka iskaashiga labada dal. Waxa ayna labada madaxweyne isku raaceen in iskaashi buuxa ay labada dawladood ka yeeshaan xagga ammaanka, ganacsiga iyo horumarinta. Arrimihii la isku afgartay waxa ugu waaweynaa 20 milyan oo ay dawladda Imaaraadku ugu deeqday abaaraha taasoo la dhex marin doono dawladda Soomaaliya. 2 in loo fududeeyo muwaadiniinta Soomaaliyeed fiisaha Imaaraadka. 3 inay dib u bilaabmaan duulimaadyadii airlineska Imaaraadku ay ku iman jireen Soomaaliya. 4 waxaa dib loo furi doonaa isbitaalkii Sheekh Saayid oo ahaa mid si bilaash ah ugu adeega dadka Soomaaliyeed. 5 in wafdi heer sarreeyo Imaaraadahi ay soo booqdaan Soomaaliya. waxaa labada madaxweyne isku raaceen in la sameyn doono guddiyo isku dhaf ah oo ka soo shaqeeya arrimahaas. Madaxweyne Maxamed bin Saayid ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa uga mahad celiyay ajiibidda martiqaadkii ay u fidiyeen, waxa uuna soo bandhigay doorka ay dawladdiisu ka qaadanayso gurmadka abaaraha ka jira dalkeena, horumarinta adeegyada bulshada iyo arrimaha ammaanka oo ah caqabadda ugu weyn ee hortaala dawladnimada Soomaaliyeed. Dhankiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa uga mahad celiyay dawladda iyo shacabka Imaaraadka garab istaagga ay u muujiyeen shacabka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaruhu, isagoo sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ahmiyad gaar ah siinayso xoojinta xiriirka kala dhexeeya caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan wadamada xiriirada soo jireenka ah ay Soomaaliya kala dhexeeyaan. aad baad u mahadsantihiin.